dadka wada seexday leylkii dartayda intaad dhafraysay goortaan dooc isu rogaayana daryeelkayga aadan ka daalay jannada rabbi ha kuugu deeqee dhankayga soo dayo safiin walaashay idla hadlaysaa waa Dictorey Safiin waxaan rabaa maantay halkan aan murugo uga dirhayaa hooyooyinka Soomaaliyeed meel kastay joogaan qaas ahaan gabadha ninkaas oo intaas la eg oo maanta hooyadiis dilay waa kolleyba way jiri jireen kuwa hooyadood dila laakiin aniga tay ugu naxdinta badneed waxa waay nin intaas la eg xabadka geedkaas la eg hooyadiis kow qoorta uga siiyey aad iyo aad calool xumo waaye walaalayaal wax kasta waa dhacaan gabadhaasna waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto jannadii firdawsi Allah siiyo laakiin walaalayaal wax kasta waa dhacaan wax kastana waxay ku dhacaan sababta ilaahay waxaa dhibaataa in cunuga adiga dhashay ilaahay kugu sababo oo uu ku dilo ama adiga gacantaada ku dishid laftigaaga marka wax kastaba waxa waaya xaq ilaahay bay sababta ka tahay horta taas aan ilaahay ugu noqono ilaahay ugu sujuudno haddii ilaahay baariya ilaahay awlaad baariya na siiyo oo kuwa maarta baariya ilaahay na siiyo oo haddii alla kuu reeyay gacanteena alla ku sababin annagana gacanteena alla ku sababin ayaguna gacantooda alla nagu soo sababin horta aan ilaahay ku shukrino ilaahay aan ugu noqono ilaahay aan ugu xamdino haweenka Soomaaliyeed meel kastay joogaan inta kale waxaan ku darahayaa walaalayaalow waxa waaye dadku waxa iska suurtagal ah ayaga laftigooda cuqbad ay galeen waalidkoodii ay ka galeen ama waalidkoodii hore u soo hantaatureeyeen ama waalidkood maartay nafta yeesa ka qaadin hore u soo dileen ama waalidkood maartay codad xun ay kula soo dhaqmeen ama waalidkood soo habaaro soo gamay inay jiraan ayaga laftigoodu oo maartay ay jirto waxa la yiraahdo maartay sababtii adiga aad geysatay inay arintan ku dhacday marka taa sababtaasna ilaahay nooma keeno ilaahay nagama dhigo dad caasi iyo waalidkooda caasi ku ama waalidkooda dilo ama waalidkooda xumeeyo marka waxa isku dayeysaan wax kasta waa dhacaane wiilal iyo ka gabdhaba in awlaadiina aad maartay tarbiyeysaan in aad ilaahay baridaan oo kuwa baari alla idin siiyo adinkana waalidkiina aad baari u noqotaan waalidkiina waxa u geysataan adinkana la idin geysanaya kii waalidkiisa maalinta raantureeyo dilay ama af xun yiri asagana bari qoorta in laga qaado ama qoorta lagu dhufto ama la dilo ama toorey laga dhaco ama nafta la dhaafiyo waxba lama aha marka walaalayaal meel kasta Soomaalida inta dhageysanaysa iyo inta maqli doonta inta arki doontaba waxaan leeyahay ilaahay sharafta nagama qaado ilaahay awlaadeena naguma sababo annagana gacanteena alla kuma sababo wax badan halla maartay ilaahay ha noo noqdo ilaahay ha loo shukriyo maartay qofkii ilaahay ilmo baari siiyay ilmihiisa baari u ah oo adeegaan u shaqeeyaan ilaahay ha u shukriyo midda labaad waxa waaye waalidka ha loo noqdo waalidka baari ha loo noqdo qofkan waalidka baari u noqon oo waalidkiisa baari u noqon wax badan baa ka halaabaya waxa arkaysaa niman maartay gabdhihii ay qabeen maartay waalidkii ku soo dirahayaan oo waalidkii habaar uga dalbahayaan oo naagihii ay soo guursadeen naagahooda kaliya fiirinayo awlaadooda kaliya fiirinayo hooyadii iyo aabihii iyo ehelkii dhalay oo dhan xumaanayo oo maartay ay habaarahayaan marka qofkaas asagana wax uu qabanayo wuxuu helayaa ma jirto awlaadiisana waxba kama helayo awlaadiisu inay sidoo kale u galaan bay noqonaysaa waxaad arkaysaa kuwa maartay gabdhaha ka wiilalba way waxaan ka hadlahayaa meeshaas waxaan arkahayaa rag oday niman waxaa arkaysaa ilmihii naagtii uu soo guursaday ninkii naagtii soo guursaday wuxuu ku dirhayaa ehelkeedii oo leeyahay ha u tagin ha la hadlin aniga jecesha anaga isjecel hadda markaas muxuu dhalahayaa asaguna wuxuu dhalahayaa awlaad caasiya ilaa waalidkeediiba gabadhii ka gooyay waalidkeedu gabadhii ka dhushay waalidkeedu gabadhii maartay oo banaanka ka marsiiyay asagana wuxuu dhalay baa banaanka laga marsiinhayaa ama dilahaya ma fahantay gabadhii ka wiilba waxay tahayba waxaan leeyahay waalidka ha loo noqdo waalidka intii nool ha loo noqdo intii kalena ha loo duceeyo ha la xuso oo ha la sharfo ha loo duceeyo qabriga ha loogu duceeyo intay noolin ha loo noqdo
awlaadaada waxba ku tari mayso haddaadan adiguna waalidkaaga ka ducaysan marka waxaan leeyahay gabadhaasna allah u naxariisto ninkaasna haddee kolleyba ilaahay baa amuurtiisa yaqaana waalidkiis dilay iyo tii wax dishayba ayaduna ilmaheeda dishayba oo ka uga siisayba waxaan leenahay allaha ilaahay hana isku kaaya cafiyo ilaahay noo dambi dhaafo hooyooyinku meelay joogtaan iyo aabbayaashu meelay joogaanna allaha hanuuniyo kuwii waalidkoodii ka ducaysta allaha ka dhigo anigu aan ka mid ahay kii waalidka ka dhinteenna kuwa maaragtay waalidkoodii xusa oo waalidkoodii maaragtay xusa oo maaragtay waalidkoodii siyaareysta oo waalidkoodii siyaareeyo oo waalidkoodii u duceeya allaha naga dhigo annagana waxaan sugi doonaa insha allah awlaadeenna inay saas maaragtay noogu duceyso oo na siyaarato intaan nool nahay ama baari noo noqotaba insha allah wixii maaragtay sababahana haddee ilaahay baa shuqul ku leh ilaahay naguma sababa awlaadda marka waa idin salaamhayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.